aad u mahadsantahay Yaasiin booqashada aan ku joogno wadanka Kenya caasimadda Nairobi waa booqasho shaqo weeye waxaan u nimid inaan la kulanno bulshada qaybaheeda kala gedisan maadaama jaaliyad aad u badan ay degan halkan Soomaaliya iyo in aan la kulanno beesha caalamka saaxiibada Soomaaliya intubana waa noo qabsoomeen waxa tiri dawladda yani heshiiskeedii sheegtay dawladdu waa ku timid wadanka yani deegaamada Galmudug in yani la dhiso maamul la wada leeyahay oo Galmudug u dhaxeeya imaashiga ay ku timid iyo heshiiskii lala saxiixday dawladda ka baxday maadaama dawladdu ka baxday oo ay burburisay دكتور شاكر waxaad sheegtay in dawladdu ay iyadu aad soo dhaweyseen iyaduna ay ka baxday ayadana dawladda iyo dadweynaha qaar kamid waxay leeyihiin adinka kaliya ayaa rabay inaad xukunka haysaan heshiisyadii adinka ka baxay arinta maxaad ka leedahay arinkaas ma ahan sidaas aad u tiri sida dhabtaahi waxa weeye oo marqaatiga leh dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka baxday ka bixitaankeedana waxa ka dambeeyay ujeedooyin gaar ah oo iyadu ay iska lahayd oo dabada ay ka riixaysay oo ay rabtay Galmudug inay ka qabsato ujeedooyinkaas ayaana Galmudug kala geeyay oo in maalan ba madaxweyne dawlad goboleedka Galmudug iyo madaxweyne ku xigeen ay caasimadda ku dhisaan yani kaliftay oo anigu aan madaxweynaha ahaa madaxweyne ku xigeenkayguna uu ahaa Maxamed Shuuke baarlamaankii dhammaan kulligood aniga ma ahan intii kalena waxay ku sugan yihiin deegaamada Galmudug ay ku sugan yihiin waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim in ay siday u difaaci jireen dadkooda iyo deegaankooda ay u difaacaan oo ilaaliyaan waraaqda soo saartay 15 bisha waxa ku qoran walwal ad ka muujinayso in argagixisadii iyo xaq jirkii dadkii aad la dagaalanteen dib loogu beerayo arinta maxaad ku cadeynaysaa waxaan ku cadeynaynaa fantasiyaha ay dhigaan shabaabku iyo xaradheere iyo ka dhigeen deegaamada xukuumaan markii dawladda federaalka Soomaaliya ay ahlu sunna wal jamaa kula dagaalantay caasimadda oo ay ku soo duuleen yani fantasiyaha iyo xoolaha ay qaleen iyo bishaarada ay bishaareysteen iyo in ay soo galeen deegaamadii canshuurba ay ku soo rogeen oo ay deegaankii soo galeen oo ay ka shaqaynayaan laftooda oo qaraxyo ay ku bilaabeen oo cabsi ay dadkii soo wajahday ummadii unbaa ka marqaati kacaysa dhibaatada ka jirta ugu dambeyntii ma ku muuqdaa wax hal ah oo dadka Soomaalida ah ee aad madaxda u tahay ama horeyba aad u ahayd ee Galmudug jooga ee dagaalamaya ee aad u jeedin karto ama Galmudug midaysan oo maamulkaaga iyo maamulka hadda Axmed Qoorqoor oo halkii ka jira oo xafle heshiiyay lagu midayn karo Galmudug la wada leeyahay la wada dhisto aragtida ma dareemaysaa ilaa colaad hadda dadku diyaar uma aad iyo aad u mahadsantahay annaku midaynta Galmudug inaan jecelnahay waxa daliil ah caasimadii aan isugu keenay madaxweyne xaaf ayaa waxaan niri madax ka noqo maamulkii iyo baarlamaankii iyo wax alla wixii uu madaxda u ahaa inta soo ranan caasimadda keen waa u tanaasulna marka annaka tanaasulka waana la ku yaqaanaa ahlu sunna wal jamaacana ummadda ayadaaba horseedaba wanaaga iyo sharafka iyo midnimada marka waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim wax la wada leeyahay oo aan lala cararayn mar haddii dawladda federaalka ay ogolaato Galmudug waa midoobaysaa mid ay noqonaysaa dhibaataadka dhacayana waxaan leenahay ummaddu ha ka waansoonto ama dagaalada ha noqoto yani qabaa'ilka oo deegaamada ka soo noqonaya waxaan ugu baaqayaa in ay joojiyaan odayaasha dhaqanka haweenka culimaa diinka dhalinyarada ciidamada dhammaantood inay dhex galaan ilaaliyaan oo ka hortagaan taas aad iyo aad ayaan waxaan leenahay runtii in ay uga hortagaan ummadda isugu keenan